هاسوالن وررك maanta aan kugu hayo idaacada waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay isbuucida foodo lagu soo hayay inuu wax weyn ka qaban doono Soomaalida ku nool waqooyiga dalka Mareykanka sida gobolka Ohio, Chicago, California, 602, Minneapolis ilaa iyo Washington Post inuu wax weyn ka qaban doono wadanka ayaa kufsaday warar kale oo aan idinku hayo maanta waxa kamid ah wadanka waxa kufsaday haweenka murasade xawaarde يا هدان wax laga qabanay isbuucida foodo lagu soo hayay wadankan isbedel weyn ayaa laga dareemi doonaa beesha jareerweynna marxaati ayay ka ahaayeen haye maxaa lagu cadeyn karaa cadeyntaasi waxa keeni kara ama macnaha meesha oo la imaan kara ama keeni kara beesha jareerweyne adiga yaa ka dhalat aniga waxaan ka dhashay beesha macnaha digil muqdisho maxaad u imaad muqdisho waxaan u imaad amaanka inaan sugo magaalada muqdisho life is to be come back in our children wixii xulna inaan ka saaro maxaad ka qabanaysaa magaalada waxaan ka qabanayaa isbuucida foodo lagu soo hayay ayaad ku arkaysaa marka tigimaade marka hore waxaan ka imaad from Kismaayo maxaa ka soo waday Kismaayo waxa aan ugu soo baxay in wadankan ay macnaha oo muqdisho oo si fiican aan u sifeeyo digil ataa Kismaayo ku geeyay digil haddaan ay Kismaayo waxa ay geeyay the life is in our children ayaa ay geysay haye aqoontayda ayaa ay geysay haye maxaad taqaanaa waxaan aqaanaa aniga macnaha chemistry biology waxaan kaloo aqaanaa macnaha waxaan kaloo aqaanaa magaceedii chemistry dadka chemical agriculture waxa soo idil ayaan aqaanaa yaa intee ka barataade waxaan ku bartay dalka Mareykanka ilaa iyo Norway ilaa iyo macnaha Johannesburg ilaa iyo Mozambique ayaan ka bartay bismillaah ma qodon soo martay